waalidiin fara badan oo ku nool ayaga gobolkan Ontario ama magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa aalaba waxa ay dhibsanayaan inay ka hadlaan cudurrada kala duwan ee caruurtooda haya sida cudurkan oo aan ku bilowno barnaamijka codka Soomaalida dalka Canada in ay waalidiinta u soo gudbiyaan fikradahooda kala duwan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta lahaw. Halkani waa idaacada codka Soomaalida dalka Canada oo toddobaad waliba aad ka daawad doontaan barnaamijyada horumarinta bulshada, dhaqanka iyo suugaanta, arrimaha diinta, siyaasadda iyo ciyaaraha. Magaciiguna waa Mahad Carab Cali. Ku soo dhawaada barnaamijka horumarinta bulshada gaar ahaan waxaan caawa door bidnay daawadayaasheen inaan u soo gudbino waxa uu yahay cudurka autism-ka. Waxa marti inoo ah Dr. Saciida Cali Maxamed oo in ka badan 20 sano degan dalka Canada. Saciida ku soo dhawaada barnaamijka. Waa maasanta waa dhawahay. Waa tahay daawadayaal Saciida waxaan u dooranay waxay haysataa wiil yar ee lagu magacaabo Idris isla markaana wadankan wax badan bay deganeed cunugan bay ku haysataa si ay aan u gaarsiino bulshada baahiyaha gaarka qaba in cudurkan wax badan ka ogaadaan jiritaankiisa walow ay jiraan waalidiin badan oo cudurkan beeninaya. Marka ugu horeysa Dr. Saciida waxa marka hore sharaxaad naga siisaa waxa uu yahay cudurka autism-ka iyo noocyada uu kala baxo. Waan salaamayaa dhammaan dadka fiirsanaya. Anigu magacayga sida uu sheegay Mahad waxa weeye Dr. Saciida Cali. Wadankan waxaan ku noolaa in ka badan 20 sano. Cudurkan autism-ka waxa uu cudur asiiba weeye maskaxda caruurta yaryar. Waliba cudurkan cudur lagu dhasho ma aha. Cudurku wuxuu caruurta uu ku dhacaa marka ay jiraan 2 ilaa iyo 5 sano ama kaba yarba. Cudurkan waxaa lagu ogaan karaa waxyaalo tiro badan. Caruurtu waxay ku dhashaan iyagoo noor caadi ah oo caafimaad qaba. Laakiin nolosha marka adigu ilaa 2 sano ay gaaraan baa waxaa laga yaabaa inuu ilmuhu uu ku dhaco isbedelkaas oo ka imaan kara qaybo badan oo waxyaalo badan ay keeni karaan. Marka waxa aad baan ugu faraxsanahay in barnaamijka la igu casubay. Waxaan aad ugu mahadinayaa horta hore in maaragta maanta aan aad ugu faa'iideeyay dadka walaalihii ah gaar ahaan dadka Soomaaliyeed oo cudurkan uu asiibay. Waa tahay aad ma santaa Saciida. Sidee lagu gartaa ilmaha amba cunuga qaba autism-ka goorma la ogaadaa? Cudurkan autism-ka ah waxaa la ogaadaa cunuga marka uu jiro ilaa 2 sano. Cunuga marka hore waa caadi saan u sheegay markii 2 sano la gaaro baa waxa isbedelaya ama uu dib u dhacaya. Waxa ku dhacaya dib u dhac soo imaanaya xagga hadalka. Waxa uga imaanaya xagga isdhexgalka bulshada. Cunuga wuxuu bilaabayaa in uu hadalkii haduu hadli jiray uu hadalkii joojiyo. Wuxuu bilaabayaa cunugii socod tiro badan. Wuxuu bilaabayaa oohin aan lagu macnayn karin waxay tahay. Cunugii wuxuu bilaabayaa inuu maartay uu kaligiis ciyaaro oo ilmihii kale uu la ciyaarin. Muxuu ahayd haduu musqusha aadi jiray oo maartay cunugii wuxuu bilaabayaa inuu saxaradii ama kaadidii uu isku xaaro isku kaadsho. Wuxuu bilaabayaa cunuga waalidkiis inuu garan waayo. Wuxuu bilaabayaa cunuga wax agagaarkiisa ka dhacaya inuusan garanin haddii xitaa dab uu ka kacayo macnaa awareness-ka agagaarkiisa. Marka waxyaalahaas oo dhan baa cunuga ku imaanaya. Waa tahay markaasi sidee habboon in waalidiinta ay ula dhaqmaan caruurtooda qaba cudurka autism-ka? Waa muhiim macnaha in cudurkan autism-ka markuu ku dhaco ilmaha dhaqanka caruurta waalidku ula dhaqmayo aad bay muhiim u tahay. Waa isa garan kartaa hooyo ama aabe cunugoodu caadi uu ahaa markii dhakhtar ay u tagaan la yiraahdo cudurkaas cunugan qaba oo ayna waliba Soomaalidu aad u aqoonin garan karinna xataa meel ay u doontaan caawinaad. Marka ilmuhu waxay u baahan yihiin in waalidku ula dhaqmo si joogto ah oo hooyadii aabihii ay ula dhaqmaan isku mid. Cunugii wuxuu bilaabayaa in uu sameeyo waxyaalo behavior aad u xun oo ah inuu maaragtay ama wax dilo ama wax tuuro. Marka markuu wax uu sameynayo waa ina ignore gareysaa.
waxa uu jecel yahay waa inaad ka qaadaa laakiin cunuga markuu wax fiican sameeyo waxaa weeye inaad siisid wax la yidhahdo reinforcement oo wuxuu jecel yahay aad siisaa marka cunuga wuxuu garanayaa haddaan wax fiican sameeyo waxaa la siinayaa wax fiican haddaan wax xun aan sameeyana dee wixii aan rabay ma helaayo marka taasina waa inay ahaataa joogto oo waalidiintu ayna isbedelin si uu cunuga u ogaado laakiin haddii isbedelaad yimaadaan cunuga waxaa laga yaabaa inuu wareero oo uu markaas wuxuu rabo uu sameeyo waa tahay ma lays dhihi karaa badbaado ayay heli karaan haddii ay helaan daryeel xilli hore ah taas waa waxa ugu muhiimsan autismka sideedaba waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye ilmuhu marka la yiraahdo autism buu qabaa waa in uu helaa early intervention ama caawinaad degdeg ah markaasiito hadduu cunuga 2 sano jiro cunuga markaa dhakhtarka ay hooyada u tagta ama aabuhu u tagaan oo la siiyo la yiraahdo cunugan autism buu qabaa waxa weeye oo warqadda uu siiyo dhakhtarku warqadaas way tan u furaysa albaabada in uu helo adeegyadii bulshada uu ka heli lahaa waa tahay sidee bay dadka aad la soconno bulshadeena qaar waxay aaminsan yihiinba ay inta badan ay dafiraan inuu cudurkaasiba wax jira yahay ilmahoodana uu hayo waxaa laga yaabaa qof amba waalid haddii aad ku tiraahdo cudurkaaga cunugaaga wuxuu qabaa baahiyo gaara sida cudurka autismka oo kale marka sidee bay ku heli karaan daryeelkaas adoo bulshada u faa'iideynaya horta hore dadka ku nool Canada iyo wadamada Westernka aad bay uga nasiib badan yihiin dadka kale ku nool wadanka yagi sababtoo ah caawinaado tiro badan baa waalidku aad halkaan loogu maartay siiyaa marka waa alxamdu shukr rabbil caalamiin cudurka horta ilaah baa keena wax uu dad keenay ma aha mana ah waalidku inuu ka qajalo ama uu ka xishoodo in cunugiisu uu cudurka qabo waalidku waa inuu doontaa caawinaad asagay qasab ku tahay haddii kale cunugii wax uu caawinaad uu helayo ma jiro weliba cunuga markuu 2 sano uu jiro uu ka yar yahay waa waqtiga ay ugu muhiimsan tahay in cunuga la caawiyo oo uu helaa programyadii ugu muhiimsanaa oo cunuga caawin lahaa marka waa ilaahay mahadiis in dadka Canada ku nool ama Westernka ku nool ay heleen macnaha ay helaan caawinaadi aad u tiro badan laakiin su'aashu waxa weeye waalidkii halkee uu caawinaadi ka helayaa waa tahay daawadayaal inala daawada khadar video ah isla markaana ay naga ogolaatay Saciido Maxamed Cali Tooreesada in aan ku booqano goobaha ay tagaan ayada iyo wiilkeeda Idris aan ku booqano goobaha lagu nastay ee ku taala xaafadda Mississauga daawasho caruurtan waxa kula talinayaa waalidiinta ilmahan haysta marka u horeysa cunugoodu ay la tacaalaan waxa ugu daran waxa weeye 2 shay cunuga in uu helo waxa la yiraahdo early diagnosis oo asagoo 2 sano jira xataa 6 bilood jira 1 sano jira ay waalidku markay arkaan cunugu wax ka qaldan yahay ay dhakhtar u geeyaan pediatrician-kooda ama family doctor-kooda tan labaad in cunugu uu helo diagnosis oo la yiraahdo warqad uu dhakhtarku u qoro uu yiraahdo cudurku uu qabaa kadibna uu helo early intervention-ku waa wax ugu muhiimsan oo ilmahan autism-ka ah loo sameeyo sababtoo cunuga asoo 2 sano jira haddii la qabto waxaaba laga yaabaa inuu normal noqdo tarbiga ABA-ga marka lagu sameeyo waiting list-ga wuxuu ku jirayaa muddo marka waalidiintu waxaan kula talinayaa kow cunugoodu markay arkaan inuu wax ku qaldan yahay inaan guryaha ku haysan oo ayna ka xishoonin oo laakiin ay raadsadaan caawinaad dhakhtarka u tagaan yiraahdaan cunugeena waxba ka qaldan diagnosis-ka ay helaan markaana isla markiina uu galo waiting list-ga waa tahay Saciid aad u mahadsan tahay mar kale Soomaalida ma fahansana ilaa iyo hadda cudurkan autismka xitaa ma jiro magac af Soomaali ahaan lagu qeexo xanuunkan maxay tahay tallaabooyinka bulsho ahaan habboon inay qaadaan maadaama xanuunkan uu ku soo badanayo ubadkeen cudurkan Soomaali magac ma lahan laakiin afka qalaad waxa lagu yiraahdaa autism spectrum dhowr buu kala qaybsamaa marka laga bilaabo inuu markuu low function yahay ilaa iyo nooca ugu sareeya oo la yiraahdo Asperger syndrome marka wax ay Soomaalidu macna badana awareness kama ay haystaan nooca uu yahay cudur daawo lana ma aha cudurkan
oo inta cunugii kaniini ama wax la siiyo uu daawoobayo. marka waxaa muhiimadu ay tahay in adeegyada bulshadu ay ilmaha helaan. adeega ugu muhiimsan oo cunugan u baahan yahay waxa weeye waxa la yiraahdo ABA program oo la yiraahdo Applied Behavior Analysis. waa therapy u gaar ah caruurtan inay helaan oo muhiim ah. terabigaas oo ah terabiga ugu lacagta badan. waxaa laga yaabaa psychologistadu inay kaa qaadato saacadii ilaa iyo $150-200 halkii maro cunugaagu ay arkayso iyo terabiga loo sameyn lahaa. marka taas waa tan ugu muhiimsan in ilmuhu ay helaan terabigaas. Ontario waxay ku bixisaa ilaa iyo $600 milyan oo lacagta Canadian-ka ah ba Ontario ay ku bixisaa service ah in ilmaha ay helaan terabiga. marka dowladda hadda joogta oo conservative-ka ah waxa weeye servicedii way goysay. cunugu markuu 10 sano gaaro ma helayo servicekii. tii hore oo laakiin liberaalka ahayd oo Ontario ahayd servicedii way socon jireen. marka waa crucial cunugu in horay wait listiga laga geliyo isagoo 2 sano jira isla markiina uu helo. weli waxaan ku boorinayaa aniga waalidiinta lacagta hadday haystaan in iyagu ay ilmahooda u bilaabaan programyada privately oo ay iyagu ku qarash gareeyaan lacagta. inta badan Saciido waxaa maqalnaa Soomaalida qaar waxay rumaysan yihiin in caanaha geela uu u wanaagsan yahay cudurka autism-ka. qaarkood waxay u aadaan dalkeenii hooyo ee Soomaaliya, qaarna waxay u aadaan dalal Afrika. bal arintaasi jiritaankeeda maxaa ka jira? caanaha geela horta aad baa loo sheegay laakiin ilaa iyo hadda wax scientific ah oo hadda oo lagu soo cadeeyay in caanaha geela uu u yahay cudurkan daawo ma jirto. aadista wadamada Afrikana runtii waxa weeye cunuga aad bay waqti uga dhuminaysaa. marka cunuga 2 sano isagoo jiro wadankii laga kaxeeyo la geeyo Soomaaliya meesha u baahnaa in ama Afrika la geeyo u baahnaa in uu helo caawinaad waqtigii ugu dareyd ahayd cunugii time baa ka dhumay. waxaa laga yaabaa cunugii oo 10 sano jir in wadankii lagu soo celiyo kadibna uu heli waayo servicedii uu markaas u baahnaa. cunugan daawada programkan ABA-ga terabiga waxay wax tartaa ilaa iyo 5 sano. 5 sano wixii ka weyn cunugu inays wax u tarin baa laga yaabaa. laakiin haddii lagu bilaabo programkaas cunuga oo yar waxaa dhici karta inuu isbedel weyn sameeyo. marka caanaha geela waa arin aad maaragtay runtii aad loo hadalhayo ilaa iyo haddana baaris baa ku socota laakiin wax conclusion oo hadda la sameeyo scientifically ilaa iyo hadda lama soo saarin. waa tahay waxaan ku jirnaa gabagabadii barnaamijka. maxaad u jeedin lahayd bulshada Soomaalida si u garwaaqsadaan in xanuunkan uu yahay mid jira oo u baahan in la waajaho qaabab gaar ah? programka waxa weeye cudurkan waa cudur real ah runtii wuuna soo badanaya. 60kii cunug wuxuu ku dhacaa hal cunug. marka waa cudur aad u tiro badan. program waxay u baahan tahay marka programyada cunugu u baahan yahay in loo sameeyo. taas ayaa ugu muhiimsan. ilmuhu wait list la gelinayaa. waxaa horta ugu horeeya marka aan ka hadlay Ontario kaliya hadda waxaa qofku marka cunuga la siiyo diagnosis ama la yiraahdo cunugu wuxuu qabaa autism waa in uu waalidku wacaa Ontario Autism Services. taas waxay keenaysaa cunugii in uu buuxiyo form ama waalidku uu formki buuxiyo oo la geliyo wait list. wait listigaas wuxuu u geliyaa programyada ABA-ga. waa muhiim inta uu cunugaagu ku jiro wait listiga. maxaa laga rabaa adiga ma fariisanaysid cunugii waxaa laga rabaa serviceyo kale tiro badan baa jira oo dawladdu ay lacag ku bixiso. waxaa kamid ah speech therapy, occupational therapy, mental health services. waxaasoo idil in cunugaaga uga faa'iideysid. waxaa jiro kale fandhiyo aad u tiro badan oo Ontario laga helo. waxa ugu horeeya inuu markay 18 sano ay ka yar yihiin waxay eligible u yihiin program la yiraahdo ACSD oo ah Assistant for Children with Severe Disability. waa lacag la soo diray ilaa bisha koodeeda $450 waxay ka timaadaa muxuu ahaa qolada la yiraahdo social serviceska and children serviceska. waxa kale imaada lacag iyada la yiraahdo special service at home oo ah respite ama in aad heshid qof adiga ku shaqeeya oo cunuga kaana siiya. taa ilaa $3,000 ilaa $6,000 adigu ilaa sanadkii oo dhan waay. marka invoice buuxinaysa waa diraysaa.
cunuga markuu 18 sano uu ka weynaado wuu isbedelayaa waa inaad apply garaysaa ODSP-ga ODSP-ga waxaad bilaabaysaa 16 sano markuu jiro taas waa lacag ilaa 1200 ah oo ku imaanaysa bisha kowdeeda ama waxaad apply garaynaysaa DSO-ga oo ah Developmental Service of Ontario Passport Funding cunuga markuu 18 sano ka weyn lacagtaa weeye lacagta soconaysa ilaa iyo oo ku weynaado oo aad adigu ku caawin kartid ku geyn kartid programyo xataa markuu 21 sano gaaro oo iskuulka uu ka joogsado cunugii waxaad ku geyn kartaa programyo kale inuu si guriga ku fadhiyo waa tahay su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya waxay tahay Saciida qaar baa waalidiinta aaminsan in haddii ay haystaan caruur xanuunsan in abadiyan waxbarashana u soconayso baabuurta gaarka ee lagu qaadanay ay soconayso ma waxbarashadiisa limit bay leedahay mas waa wax u soconaya abadiyan intuu u nool yahay ilmahan iskuulka waxay aadayaan ilaa iyo 12 sano 12 sano markuu cunuga gaaro iskuul ma jiro unless uu cunuga yahay high function oo uu jaamacad aadaynin ilmahaas oo kale maartay IQ-goodu aad u sarreeyo waa tahay aad u mahadsantahay wixii tala iyo tusaale aad had idin waxaad nagu soo hagaajin kartaan emailka shashada ka muuqda aad iyo aad u mahadsantahay thank you adaa wada mahad